maxaa dhacayna gaariga banjarayde banjar baa jira ahey maxaa yaaqay dhaqsaya waayahay samee dhaqsintaa fadhiyo dhib badanaa anigaa kala tuurahaya adigu wax yar bannaanka istaag waayahaye dhaqso bal war heedha dhaqso gacan cuslidaa balday meeshuu taagan maxaad u taagan tahay maya waxa waaye waxa ka maqan abo yarka abo may maqashidniya hooy halo abo adoo mahadsan garamaysi kartaa baabuurka iga banjare aniga murugaysa iga leh murug yarka murugtaada waa fahmay abo garab ma isiisid hooy abo garre waa ku baryaa garab isiidee dhib badana namari waaye ma oynoyaa saankadhe baabuurka aan furafiir abo alaabtaan muujada aan qac ka siinaynaa murug jabisaa la yidhaa murug jabis ah laakiin aniga ma cabi karin maxaa dhacay inta gaariga lee samaynayo waa isfagaaraynayna adna waa cabi adna waa cabaano wax weyn maaha kaal adiga intay u socotay aniga haa aniga waxaa rabay mandarkiina aadan baashaanna ma cabi kar igraan noq saaxibe ha inabinoha ha i dambaajinin ma cabi kar waa iga codsiya dhibkayga dhaaf mandarka iyo mina subaxnimadaana abow dhib maa ku haystane adiga waxaad u eg tahay qof laba siyaabood haysato ugu horreyn qof jeceyl ku xumaaday oo mandarka isku soo fogaaray rabo midda kalena waa mid iska khiyaaliyo lama sheegi karo laakiin ii sheeg dhibaatada ku haysato inaa garabku sii ayaa laga yaabaa aniga waxaa la yaabanahay odagan sababtoo ninkan u dilay abo wax kale ma ninkan wuxuu u dilay qofka qiyaano wadaba saanu u dilaa marka caadi waada isku murjeen eega tagdhe calaashan wadaninima ku dhammaatay haa hay adigan taladaada kembal maxaa ka aaminsantahay odagan abo caadi maaha anaa ku dhahay wadani waa ku dhammaadaa ku dhaa ninka saan le waay filinkaana horaan u daawadaan kuri wiilkiisu masuqmaasuq kaga shakina kadibna inuu dilo damcayaan kuri odagan caadi maaha waa wadaniga dhabtaha ee la sheegi jiray kaba soo qaad anigoo hadalkiina idinku qaata ninkan taariikhdiisoo dhan waad iga sheekayseen marka waxaad ii sheegtaan naag haddii ay ninkeeda qayaanto ama nin haddii uu naagtiisa qayaano odaygan muxuu ku samayn karaa muxukumaya ilan waxaad ii sheegteen mister xukumaayo inuu yahay okay dhimale taas way kuu fududahay haddee naag ninkeeda khiyaanto soomaan waa caadi wayna dhacdaa laakiin khiyaanadaasoo kale markay dhacdo dhalaa loo qaataa shaamshaamaa layska soo dhigaa gurigaa loogu imaada ciqaabta ay leedahana waa la marsiiyaan kuri bannaanka waa laysaga saaraa hooyarka soo naqabal hey adiga jaceyla iga sheekaysa guura iga sheekaysay aftar jaceyl kadib gabadhaas ma isguursateen mise xoogaa waxaa jira ii sheeg maya before guurka ka hor waxaa ogaaday gabadhaas nin kale inay u doonneed micnaa haa haddii gabadha lagaa guursado bal maxaa kuu dambaynaya adiga aniga may aniga nolosheeda waa iska caadi sidaan habi ayaan ku ahay wiilashoo dhan hadday sidaadoo kale ahaa lahaayeen gabdhaha waxay heli lahaayeen wiilal wanaagsan oo guursada hadda maxaad samaynaya hadda aniga waxaan rabaa gobolkayga inaan ku laabto sababtoo ah guurka walaashay ayaa gobolkeena ka dhici raba soo ma marka waa ku khasbanaya inaan xagga aado
way soo kortay way soo socotaa wadna nasiib haddii aan leeyahay dhinacayga leeyaha soo fariisato midaasaan rajeynaa iga raali noqo agtaada ma fariisan karaa fanbroch.com 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 ilaa had turubkaan ku bixinoyaa wax jokerna mau ku arkoy soo daa warka saaxiibow qoftii baskay soo fuushayno qoftee ka hadlaysaana gabadhi riyadana gabadhi riyada gabadhi aan ku sheegi jirno maskaxdaada soo celi iska daaya qaaday waxay doontaba ha aatee aniga talaan ku siinaaniyo taladeeda wanaagsan qaado dumarkan beenaa lagu soo xirogeliyaa runna waa lagu dhaqaa been ku afuufaan ku yidhi kadibna way ku jeclaanay anaa kaa huba taladeeda qaada saaxiibkii ayaan hay saaxiib macano alex saaxiib beenta culays ma niyo adi madaxa iga cunto kowdhe talaan ku siinaa marka okay baska waxaad la hadlaysaa darawalka wada darawalka waxaad leedahay baska ii jooji gurigiinna hortiisa ku istaaji gabadhan la deg kadib gurigiinna la gal u sheekee sidaas sheekadaba kuugu dhammaanaysaa dhagdhagay kuu noqonee 2 biloodii baska gurigan hortiisa anaa aqaana darawalka anaa kaala hadlaya qofta deji albaabkaaga hortiisa lagugu dejinaya waa ku salaamay waan kaa qaaday magacayga vijay govinda iga raali noqo hal mar igu celi vijay govinda sida ila tahay adiga hadda ka hor gobolka ayaan kuugu arkay magacaa magacaaga ii sheeg abalamaa iigu celi bal abalamaa waa magacyadii hore hiddii dhaqanka ilxun kuma aragto xaggee u socotaa ii sheeg bal kashmiir kashmiir isee wax rabtaa adig baskan kashmiir maba u socdee haye waaba ogtahay meesha u socdee aniga maxaad ii weydiinaysaana horaa fijiye garaac kadibna maaragta sameecadda furan kuri sbiikarka inaan kala hadlaan rabaa ninkee okay vijay saaxiibow qofta difaaceeda way adkaysano qof la geli karana ma aha qoftaan qof dumar waaya qof dumarna difaac haba yaraatee male saddexay ku soo gashaa aan ku yidhi difaacaas jabso hawshana gal sida ugu dhaqsiyaha badan adiga ha ka baqin keliya u dhowow qofta way qoslaysaa umalaynaa xilligaani galniyo haay yariista qoraxda badneed gili gabadhayda maxaa kugu dhacay ii aamusooya macaan may waxba kuma samayn aniga war adiga culugta maxaad ku samaysay wayba oynowsaayey soo uma jeedid hubaal aniga waxba kuma samayn waa la ciyaara oo keliya ee ku soo laaban adigana isubal aniga idhib walaal waa maasan tahay idhibal quruxleeda qurux badan waa wada ciyaarnay soo maa hooyaan kuu dhiibayaa walaal gabadha adigay kuugu qanacsantaa adiga leh maa haysid qorshahayga dhimaarta fishil inaad ka dhigto garab isayno haddii kale iga aamus dhagsaman kaa qaniina aamus haddii kale maxaa waaye walaashiis waxaa malaynaa yarista gaajo inay qabatay marka caano waa inaad siisaa iga qabo cunugta caanay u baahan taha adiga lee siino maxaa dhahday aniga warshadda caanaha soo saaraysa maan ahay anigaa masaasada caanaha kuu dhiibaayo haa saas iga dheh masaasadda maa igu soo dartay way seexatay waa ciyaal anigana runtii ciyaalka sida loo seexiyo oo keliya ma aqaan dadka waaweynne waan seexiyaa hurdo wanaagsan si ay u helaan carruurta sida loo seexiyo ma taqaanaana adiga carruur ma leedahay maxay dhahday marwo degmadayna qofka keliyo iskaabulaha ka ah waa aniga abaayadiis cunugta way seexatay kaale waayahay sheekadan wayba igu sii dheeraysay maxaa
idhegeyso marow dhib haddii uu jiro waad ii sheegi kartaa si aan kuu caawiyo xoogaa suuliga ayaan rabe waana ka baqaaya hadday macquul tahay may raaci kartaana albaabka suuliga ayaan waxaan ku soo arkay niman xoogaana way cabsanaa sidaas darteed waan ka baqay hadday macquul tahay i raacno okay dhib ma laha aniga garab ku siinayo inamare soo soco halkanan kugu sugaa or soo danayso hay boorsamayn dumea ku soo celi mise qoftaa ka wadaa may saaxiib isdeji caadile waa saaxiib yaa loo mahadsantihiin idinkoo dhib iyo arkayna xoogaa gabadha way idinka xishoonaysano marka waxaa ila wanaagsan inaad abuu maxay tiri musqusha qofta ii ka haysataa sheeko cusub waaybe maxaa kale ha ii sheeg warka ku sii wadaa markaan waxaan malaynaa sidii hor inay kasoo dabacday adaan nooba qataraniyo qofta way ku jeceshahay gal marka qofta way kugu kalsoon tahay kowdhe sharafteedii sumcaddeedana inaad ku ciyaartid looma baahna marka amsurya sideen sharafteeda ugu ciyaaraa dhib male kowdhe saaxiibow adi dumarkaa ma taqaanid anaa dumarkan ka aqaana marba hadday musqusha kuu soo wato oo musqusha ku keentay sheeko jecel bilowgeeda waaye anaa huba musqusha markay ka soo baxdana ayadoo dhool cadaynaysay soo baxaysaa hadday soo bixi weyso meeshaan kaa taabta iska jaraan ku irniyo taladan ku sii waa tala wanaagsan qoftaas way kaa heshay ams way soo baxday nabadii mar kale noo ballanah dhegeyso gaajaan dareema aniga cunto meel soo cunaysaa may anigiinaan bax ma rabo inta le iigu keen idhegeyso ha hilmaamiyaa hore iigu keen maandhehe maxaan kaa caawiyaa duca qaba kursiga gadaalaan leeyahay mahaasna geli ma kara waayeela ah adaa dhallinyaraahe galaan kuu duceeyey fiidka hore canugtas yarista ay qasaysa haddana adig maa kusoo darsanta iga qalayo maandha waan kuu duceey adaa dhallinyara ani duqaahay ii bannay inta ayeeyo waa ku mahadsantahay ducada ku dheh orod hadda booskaada iska ballayn kalaan ku jiraan qaska iga dhaafno iga qala bax hay maxaa dhacayna maandha aniga waa yeelaha kursigaanaan raba may xoogaa islaanta kursiga dambe ku soo caajistano marka adigna waxaan diidaa hurdada inaan kaa kiciyo mogta oon ku qaso marka sidaas waxaan ku qasbanahay inaan garab siino ha soo fariis ayay safriiso ima sii rabinee socotanaa isiise adigoo amuur kuu samaad wax ku oomi ma waynaysid maxaa kugu dhacay xoogaa maamada quura igu dishayno marka haddaadan dhib u arkeen agtaada ma fariisan karaa soo fariiso kaale dhankeyga lahaa beel waxaan rabaa xoogaa inaan iskala bixiyo xagga haddaa iga sik diyaar waad iskala bixi kartaa soo daa warka markaniyo markan waxay la tahay qoftii agtaada ayay joogtaa
hadday agtaada joogtana wax badan ayaa ku hagaagi kara tartiib qofta haddaa bas wada saarantiin kursi aa ku wada fadhidaan waxyaabaha meesha ka dhacayaan rabaa inaan ogaado xaaladda intay kuu maraysaa inaan ogaado ayaan rabaa qofta ilaa intee in leeg ayay kuu jirtaa inaan ogaado ayaan rabaa hadda way jiiftaa markay soo toosto waa ku jeclahay ma dhaha saasaa dhihi yaakh saaxiib taladeeda qaadaya qofta bishimaha u saar yaakh adi kaaladi mawaalanta maxaa iwaalaya qofta haddaa bishimaha u saartid jaceylkaa bilaabanayaan ku yidhi weliba si dhabay kuu jeclaanaysaa wayna kaa helaysaa anigaa kaa huba intaasoo keliya samee adiga in la dilaa rabtaa malayna nolosheedaa ku dhibtay maya saaxiibo taladeeda qaado waa ku barya intaas samee aniga muddo kadib ayaan ku soo wacayaa wayna kugu farxaysaa adigu ha iswareerinin tartiib baashi ku qabo may ma lagu aamini kara saaxiibo 10 daqiiqa kadib waa inoo ballana maxaa sameey aniga salaabo qaldan ayaan qaaday may kaas talo inaan weydiiyo ma wanaagsanin qoftaan hadiyad aniga imaaday waa inaan isaga ciyaaro ma wanaagsan إجراء إفهم مركور أنا وحنا كنت لقال ومسمين أذكر مو وناكسن قلت إن إفهمت لبعضنا وحكيتني كو صاحبك هنا أو لتسليه ها لبعض صار حد هو على قولت لي يا سوما هن قبلها نسينا على دقنتا يا دقن حنا تا أذكر سيدان ما يقول لنا نسي وحفير وكلنا وكلية سكو مركور فان إلى هذا walaal taleefona ku yeel hoo halo gita walaal maxaa kugu dhacay xaaladaas okay maa maya walaal okay maa maxaa kugu dhacay sheeg maxaa kugu dhacay gita wiil baskii la saarna ayaa si xun ila dhaqmay walaal muxuu kugu sameeyey sheeg isagoo shumina ayuu suuriga qaaday walaal halo walaal ceel badana taleefonka waa iska jabiyey kaa gidib kan ii wacay waa ku baray kan si khaldan ayaad ii fahamtay aniga qaladaadka noocan oo kale weligay iskuma dayn inaan geysto gabdhaha waa sharfaa mana laga yaabo waxyaaba dhibaataynayo inaan ku sameeyo halo walaal intee kala socdaysa ii sheeg hadda waa ku barya ii sheeg waddada walaal waa ku barya adigaa isdhibin aniga ayaa imaanaya markaan imaadan ku soo wacayaa walaal
inaad ii imaadid looma baahan aniga arrintaa xalinayo waayahay waa ku sugaa ii keen wiilka hadda ii keenaan ku dhahay saaxiibadeen u diyaarinaa soo kuma dhianin qaladkan si ku talagal adiga kow ma geysan shil ayuu ahaa waa ku baray arrintan aabbay haddii uu maqlo saldhiga ayuu igeynaa baska meeq soo imaanaa 6 ayuu imaanaa waayahay waa sugaynaa adigana ciidamada dhan ii diyaariyaan ku dhahay soo baxa makeen ilaa hadda qaladeed iga fahamsantahay adiga wax qalada ma jiraan wax walba qorshe ayaad u samaysay markay dadkaas imaadaan adigaa arki doono dadkaas tubid may ma laga yaaba inaan la kulmo meeshaan joogis malaha waa iska teganaa kaal waryaa xaggee u socotaa fariisa halkan fariisaan ku dhah fariiso meelaad aadaysa ma lahan ii dhiib gacanta keen inaan baxdaa rabtaa miya keen iga aamus waryaa waa ku bare nuura arrintii ma samaysaan samee ku dhahayna xabsi kursi ma iga dhigtay halo walaal ila hadalno adi hawshii aan kuu diro ma samaysanay qoftii ma shumisay macsiyaan ku dhahay hawshaa u dirta wuu sameeyey wuuna ishumiyey walaalkaa ka warnay wuu ishumiyey adiga anaa shaqadaada aqaanaa ku dhaha ninkaan adaa baxar gelisay ka xaaxaabiye ballan waa inaan ka gooyo labadii nabeedi ma dhaafayaan ku dhaha maxaa qaldan waryaa kac waryaa kacdi ka istaag nadafeeno maxaa noo kicneen baashi igu dirtay ii sheeg yaa qaadi maxaan ku diran dhafniyo baska wuu yimid soo baxa fadhiiso adig fadhiiso soo soco fadhiiso adiga cid yasa dhaqaaqin walaashay uryaa maxaa samaynaysaa adig iya anaa salkaana boosteejada igu sii diyaarsanayna haddiinba kuu sii joogo waa taysteena nabaday ciil badana waaba kana asiga imaan yaa waay walaalkaaga waay kamal haa soo hadal walaashayna baska dhexdiisa ninka qoshka shaqaaday ninkan waa iga baxsaday hadda xaalkuu degan soo maaha intay joogtiin boosteejadaan joogaa okay walaashay ma ku dhowdahay haa waa ila joogtaa waxa aad samaynayso waa qalad walaashay gurigii hal sac kadib aniga ayaa ku imaanaya walaal ninka walaashay sidaas yeelay miyaan ka tegi karaa inaan jarjaraan rabaa adigoo noocan u dhaqmaya ma rabo inay bulshada ku aragto waa ku baryaa meesha ka tag guriga tag aniga ayaa wax walba xalinaya gaariga waa inaad noo istaartaa vijay aabo akaalay halkan maxaad ka samaynaysa ii sheeg baska naga halaabay anigan xoogaa waan daalnaa sidaasaan halkan u imaaday xoogaa rafaadkan wax kala maaya wiilkayga dhaawac muu ku soo gaaray ii sheeg bal may aabo caafimaad qabaa okay soo bax aniga ayaa xaafadda gelaya bum hay walaal maxaa waaye cabsida kaa muuqatani adiga igu qaylina isla adiga ay dhahay cabsida kaa muuqato maxay tahay walaashay maxaa kugu dhacay adiga walaal laakiin maxaa kugu dhacay adiga maxaa waaye wasaqdan kaa muuqata iyo rafaadkan sheeka dheer waa fadhiya u baahan tahay okay waadi salaam waan kaa qaaday anigaa diyaarinaya idinka waad iska waaya bixi wiilkey walaashay macaanayd waan la socday anigoo maqan adiga inaadan guursanaynin fiir maxaan kuu keenay
kaadsiinkii hooyo dardaarankeeda ahaa heedarbaad ayaan kaaga soo iibiyey aadaad ugu qurux badan tahay abaaye maxaa kugu dhacay soo istaag bal hee walaal runta ii sheeg qosolkaad adiga qoslaysid waa qosol been oo aniga aad ii jilayso waxna waad iga qarinaysaa walaal maxaad iga qarinaysaa maya abaaye aniga waxba kaama qarinayo ii sheeg maxaa kugu dhacay aniga waan ku aqaanaa adiga liikaa guursanaa sooma inaa murugooda waa ku qasbana walaashay macaanidin waan kuu xiisi doona waryaa ha ii baqin aniga inaad murugootana looma baahno aabbana wuu ku faraxsan yahay guurkayga wax walbana way dhammaanayaan walaashii aan jeclahaa tahay waanaad ii faraxsanaataa habiiska waayahay كل حبل وضد ابنه صعد حق عيار وسلامتي اوكسر واكن اسكبر walaal keen ku xiragtay labiskana wuu ku soo baxaya maxaa jireentan يا جرس ما يا معناه عيال كان دياسبر من اسكريا ديارة اللي جعلي أنا بتركي بس هنا كوسار وصنع عن لين باركبه أبو بأما تصادق لي كرا معنا ترينا كوي ماذا الشوغان ومحي الشوغا وح لما ذا هبين سامل وأركنوا مال أنت هبين اللي بدل هبين كمالين الشوغ لا بلا كان بعيني قدام أبي معنا يو سجوني يا ربا إنهم كل هذا معنا هو خبي أصل سحلة إيش كي وحول شوغان وحكاكينا بس أسرع علينا مي إن وحوا لكن مرحلة ده أمر كل تاجي بس وحاسب من الشاك يستمد هذا كلام وجوب وحنجوجنا أو أراسة مركب حلو بها يركي عدنا نسينا الناس مسوا كتوجا بحنا سبع أرد ساحة وكاد الرفيق ترتيب ازدجي ما حد عاي ازدجي يا خديجة سس waxa jira ii sheeg bal maxaa dhacay in wiilasheeda ayaa waxay raadinayaan wiil baska gabadha walaashooda ku soo qashqashaaday marka intaas ayay baaritaankooda hayaan wax kale ma jiraan marka wiilkaaga ayay ka shakiyeen sidaas ayayna hada ku weydiinayeen wiilkayga horta hal mid haddii ku sheego aniga ilmahayga nolosheeda waay waana soo barbaariyey nolol wanaagsan aan ku soo barbaariyey ilma xunna waa jiraa ilma fiicanna waa jiraa laakiin ani misdahay ilmahaaga noocaas samaynayaan haddii ay dhacdo oo wiilkayga as noocaas u dhaqmo waxaan kuu sheegaa inay noqohaysa maalinta adduunka ugu dambaysa igara laa ilaa xalay shaqeynaa waa dhafar sanaa wiilkaagana waan ka shakiyey wiilkana ugu shakiyey saa darteeda problemkan keenay wax kale ma jiraan igara le hada wax dhiba ma jiro waan sii baxaya adinkana hawshiina qabsada socda maxaa meesha taagantihiin awow adigoo iska bixi kartaa soo baxbaayo يرتا دقيسنو هل مر جانس maxaa rabtaa sidaa rabta soo xuma dhicin intaas kuguma filna miya waxaan kaaga mahadcelinaa maadaama adiga aadan i sheegin
haddii aad isheegi lahayd aniga baxar ayaan geli lahaa mar labaadaan kuu mahad celina ka waran walaalay haddaan u sheegi lahaa qofkii qashqashaaday inaad adiga taa maxay kugu samayn lahaayeen ma ka fikirtee magacaaga haddaan u sheegi lahaa maxaad samayn lahayd ma qiyaasi kartaa ciqaabta uu ku marsiin lahaa sida cunug yaroo kale ayaa lagu garaaci lahaa waadna ka shallayleed waxaad igu samaysay gabar dambana kuma samayn lahayn qaabkaad aniga ila dhaqantay ha samayn waa ku bari abaayis horaan kuugu sheegay sooma aniga gabdhaha inaad dhibaateeyo inaysan dabeecaddeeda ahayn ha marka iga wareejino yarta qoraxa vijay kaalabal hal mar imaw waxaan kaa rabaa keef inaad soo gadaya keef maxaa la dhahanay sida gabdhihii ayuu xishoonayaa wiilkayga waa wiil yar weli arrimahan ma uusan fahmin laakiin wax walbuu garan doonaa dhammaantiin waa inaad qosashaan sawir ayaa laydinka qaadayaa adiga dadka tuulada warkooda ka bax haddii gabadha aad jeclaatay waa inaa ayadoo keliya aad ku dheganaataa maadaama aad shumisay shumis ah kaalade meenabe intee ka shumi gabadhaas bas hadda okay waxaaba ka soo qaadaa shumiska sikadiisa inuu ku dhacay haye waxaad ii sheegtaa sababta baska aad oga booda tuug camal waxaad isku ogtahay yaaqee aniga waxaan maqli jiray gabar oroda laakiin maanan maqlin wiil gabar ka cararo sheekadaas aniga maad ugu tala gasho duqa inaad iga dhaadhiciso kaama yeelin aan ku dhaha middaas aniga qadsarataa sooma psychologist aad ileen hadda fiiri kiiska waaba ka soo badbaadaya waa maxay murugta kaa muuqato murugad ka hadlaysaa dhibkay haysta wax kalma ay gabadhaas waxay ii malaysay qof xun aniga inaan ahay waan ku salaamay mudane maxaa waaye maanta waa aniga dhalashadayda dhalasho waanan ku hambalyan mahadsanid waad wada qaadan kartaa waxba ha ka reebin mudane hooyo aabba iima imaan xafladdeedana waa galabta adiga miyay imaan kartaa maxay dhahday wax kale ma jiraane waxaa raba xafladda inaad ii shiddo oo khatar iiga dhigto ma kuu imaan karo sababtoo beryaan damba aniga dhan waan isku buuqsanay sooma marka dad kale waa inaad raasistaa igraan marka mudane maxaa kaa qaldanna adiga waxaad iila dhaqmaysaa sida qof shisheeyoo kale xafladdayda ayaan kuugu cusuma haddana ma imaanaya idhehe sidaasaan waadmin adiga waad la socotaa inaan kuu imaado adig baan inaan kaa jeclahay idhegaysa mudane aniga waan ku dareemi karaa waxbaa ka baqin haddii uu jaab xanuun jiro dharka lebiska faashiyoonka dharka hidiya dhaqanka kulli anigaa kuu soo diyaarinayo laakiin maruun xafladda iigu imaaw ee iishid dharka iyo faashiyonka aad ka hadlaysa adigoo keliya kuwa ekaada aniga uma baahnayn waad fahamta soo maa nabaday walaal bas jooji ya qay kigeeraya ninkaas muujido sigaar wacba marka cabitaanka maxay igu diiday aniga waa daldala qawadka maxaa dhaa walaal talada xuma hawsis iga aamus ya saaxiibow ani ninka talada wanaagsan ayaan siiyay taladaasna waxay ahayd gabadha inuu shumiyo weligeeda wiili gabadh is shumiyo jirin haddii la shumiyo kadibna jecel ayaa ka dhalin jiray meesha sidee waaya haddana waa hubaa qoftaas waa ay jeceshahay weliba kalsooni ayay ku qabtaa wiilka maxay dhahday tartiib isdeji ya aniga taladii aan ku siiyey keliyaan kaada oo adiga maaba aniga la sii hadlaya war taladaada wax badanay qarabtisaan ku dheh mas la socotaa gabadha qaladka ii fahantay walaalkeed goordhow walaashay inuu guursan rabo xataa xilliga uu soo doonana aniga meeshaas waa taagnaa waay weliba xishood dartiisa walaalka bise tartiib ya qay idhaaf wacba ha halo haa adiga haddii aad tahay war i dhegayso xafladdii iyo familkii waxyaaba aad ka hadlaysa adig leh kuwa ekaadana ku leh waryaa hee dib dambaan sheekadaas igu soo qaadin aniga ma rabeen ku leh giitaa waaye yaa
halo 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 igaraan noqo xoga qof kalan kugu qaldana marka adigana qalad ay fahmo xamalena waryaa waxba ha ii sheegshigin way asxaabtaada waa inaad casuuntaa arooskana ay ka soo qayb galaan sida ugu dhaqsiyaha badan laakiin qaabkeen ku imaanayna sheegisay u baahan tahay sooma aniga waa ogtahay aniga asxaabteeda meesha hadal badan uma baahni qaladkaad gashay waad ogtahay haddii aad u wiciisa anigana ciddeedaan kuu sheegaya ha laakiin dhegeysa marka hore inaa isfahanna wanaagsan sagaalkii barkaan ku sugaya hadalka badan halo 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 ya maxaa rabtaa lambarkan adiga maa iskale haddaan leeyahayna si aan u seef garaysta camalno waryaa ciyaarta iga daa igaraal noqo baahi maa jirto maya kaal adiga sii laakiin adiga u kaada miska xanaaqii leeda dumbalol kadibna kadib ya halo hay saaxib maxaa kugu dhacan ii sheeg bal saaxiibkayga qaaliga ahayo qofse way isfurfurtay aan ku dhahay haddayba waxaanba sii arkaa maalin ka dambe siriyadeeda inay sii furfuray sababtaa goordhow waxaa dhici doonta gacanta inaan ka qabsado misna cuntada gacanteeda aan afkeeda ugu geligeliyo macaanaan ku dhahay yah muxuu soo wadaa tartiib walaalka isdejiya kontrol saaxiiba kulla waa socotaa waa ku arkaa koodha qoftina waa u socotaa gaariha isku raacin aniga mootadeeda ayaa bannaanka taalla mootadii hore usii kaxayso tartiib labadiin israac sheekadiina jeceyl halkaas ka bilowda adima wiiliisii hadlay iga saaxiib raallo fikir dambad kaama qaadanayaan ku dhahay ibraa tahayno qalad hay bas raallo wax dambe hayga qaad ku aamini doonaba abuu horaan kuugu sheegay gaariha isku qaadan mootadeed hore u kaxaysano waa ku tuuga gaari baxraa ku gale mootadan khatarta bannaanka taal iska kaxayso qoftan hore u wado sidaan oo dhan maxaad igu fiirinaysaa halkan maxaad ka qabanaysaa isdiyaarinayno diyaargaraynaan ku jira kaale adiga weli isma bedelin miya waa isbedeli weli nadiifaa noqdaa ligu kalsoonaan karaa waxaan doqonkaa bal fiiri nakaxee dhaqso గుమ్మంలోకి హోలీ తెచ్చావే నువ్వు పక్కనుంటే ఇంతేనేమోనే నాకొక్కో గంట ఒక్కో జన్మే మళ్ళీ పుట్టి చేస్తున్నానే ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే నీకై నువ్వే వచ్చి వలవే ఇకపై తిరనాళ్ళే waan ku salaamay hawri waan kaa qaaday walaalkay ayaa guursanaya waxaan rabaa inaad ka soo qayb gasho arooskiisa yaabay gabadha aroosadda ii sheeg bal aroosadda walaashay waay
waa gabadha dunida ugu fiican soo doonashadeedani 10 milyan iyo dhul beereed hektarkiisa aad u weyn laga bixiyaan ku dhahay ammaan way mudan tahay may su-aasha adiga lagu weydiiyey jawaabteeda lin bixinayna waa ku fududinaya aniga xumaan miiga ahayn habar waa sii bixinaya wax cunahe maxaa dhacay may hadda dhawa wax soo cunni caloosha fuul way taaganta hee kaale adiga su-aala lagu weydiin maxaa uga jawaabtaa su-aalaha waa lagu weydiiyey anigana jawaabtaan bixino intaasoo keliya waa hadda kadib labadeena markaan israacno bannaanka ayaad istaagaysaa anigana gudaha ayaan gelayaa ima raacaysa waalidiinteedana mar hore dhaqan xumadaada inay arkaan hadalkayga waa fahanta soo maahan haa laakiin marka hore warkabad niga daaya soo soco నిలబడు చనువే వీసా అందుకుని గగనపు కొనలే చూసా ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే నీకే నువ్వే వచ్చి వానవే ఇకపై తిరనాళ్ళే igaraan loqo cashirka markaan bixinaa taleefanka silent inaan saartaa jeclayno may mudana caadi waay dhib malahan khalad ama u fahantahay idhegeysa cashirka adiga gabdhaha keliya maa siisaa wiilasha break timena waa fasax haa waan garta macallin nooceeta adi gabdhaha bisa wax bartaa soo maahan yaa laakiin gabdhaha maxaa waay wiilasha banaanka haddaan ku fahmay dhaqan xumada meeshaan ka keentaybu yarta చితే ఉబికే లావా చల్లబడినను నువ్వు కరుణించేవా ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే నీకే నువ్వే వచ్చి వారాలే ఇకపై తిరనాళ్ళే abuu ku horgoy walaalka waa kana kajar maanta hadalaa Ria, stupid! Calm, Ria! sheeka ciyaal suuqnimay ku bilaabeen sooma laakiin waa caadi sidee lag qof daacada iska dhigay miya haye bis waa maasan tahay namar iyo daala jiray ابو باكن ترتيب يستاهل باش باكن قل يا اخي سوى حجرنا مدني شو بينا وصلنا هنا سوبر اوكي تلي كانت هذه او بورصه او ليسنك او كنت كنا ترى بدكم انت او وحب ليسنك بلا ليسنا شيك عصب وراك على طلع عن كور باشا الموتور هاي وقتها يقري وجهها ما والله طلع باشا وحاول موتور تلي ولا خذوا حق موتور طلع ابو والله طلع تلي سوى جناح هو تلي ترافيك لب بدنا ما سمعت
هلو الصون لابه قوم بمرداف قاع كسي taarik la'aan shidaal la'aan mooto noocaasaa rabtaa miyaa gabadhinaa magaalada ku soo wareejisid kaalo adiga famil noocee ka soo jeedaa sideese lagugu aamini karaa ma noocana maro adiga ma ahno nolosha dhanaba qardajeex iska haysooma marka adiga inaad u baxdid ma ahno ka sii socahaa taarge iyo leesin waxaas ma loo bano abutaajirka xaafadda furaha iga qabo waa mahadsan tahay waryaahe asxaabtaada wacti kadibna gaariyaa lagu keena weliba 5 daqiiqo gudahood khataraaba tahay kan aniga ma dalbanaya ilan aniga hab iskale soo maha haye ma adigaa iskale haa waa gaarigayga waayahay maxay tahay sababtad mooti igu wadaysa adigoo gaari leh dalxiisno ahaa meesha waraaqadaha invitationka lagu sameeyo gaari ma geli karino mootada marka sidaasaan ku soo qaatay haa adigana marmarsiima weysid intaan iiga ekee ereyga afkayga soo baxba qalad miya goormay aaminaad qofee see waaya iga jooji caaw maqribkii aanu ku weyn xafiiska shaqo ayaa kuu taalo haye waxaan aad wadidna waa maxay ii sheeg bal meesha dhigta habarta ii soo dhiibtaa habarta ii soo dhiibta kulaha waa garta adigu cidi kuma casumin maxay tahay ma iska imaanaysaa meesha cidi kuma casumin af Soomaali miyaane walaasheeda markaas guursanaysa cidna kuma ogolaan adigoo kaliya ayaa bannaan ka soo guursada marka cid iga celi karta guriga inay imaado ma jirto okay iska fadhiso way dhibka naga daaniyo dhib badan anigu waa ku salaam saaxiib waa laga qaadi waa kana tuulada dhan waa isbedeshaan la naqatay maxaa qaldan way adiga dareemaysaa noosha maxaa qaldan waxay tahay ninka walaalkeyga waa kana waa guursan bay mar dhow naag ayuu guursanaya anigana meeshaan ayaan fadhiyaa maxaan samaynaa markii waa kana waa guursanaa ku leeyahay dad tuulada dhan ayaa hadal ku sheekaysanaya nin walaashiis la sumiyey miyaa inuu guursado waajib ay ku naqato bal ii sheeg waa kana meeshaan iska socdaa guri waxaan loo joogin ayuu galaa war aniga dabar xumadaas maba qaadan lahayn midile kaale idilno naga tiga ku dheh war aniga dabar xumadaas ma qaadan lahayn ninkane lafa ayaan ka jibi lahaa nin walaashay shumiyey miyaa magaalada si xurun ma igu wareegayo habarteeda kataa ma yeelaya midaasaa kudha adigana waxaa artaa guri naa gasho haddii aad dilaysa dad tuuladoo dhan ayaa caynaya ayaga inaad disha ayaa lagaaga baahan yahay gaaja ay hayso meesha cuntadana gee intaana laga xirin ka hor waa la yaab ugu dambeyn caaw aniga maad iiga codsatay inaan ku geeyo meeshaad adiga cuntada ka cuni lahayd dhib ma laha cuntada ugu macaan aad cuni lahayd dalabkeeda aniga ayaa iskaleya maya maya aniga meesha cuntada ma tagaayo doqon yahow adigaa gacantaada iigu keenaya dhaadhaan dhaqan xumadaas maad wiilasha kula dhaqantaa adiga dhaqan xumo sidee hadalkaad iigu jawaabtay soo lama soctid aniga dhaawac inoo ii geystay haddaba caawa ha iga diidin waa ku baraya maqaayadda aniga ayaa ku geenaa cuntada ugu macaan isla aniga ayaa kuu dalbaya may ha deganin xisbul tuuga wejiyadooda ii muuqdaano marka aniga cuntada kuu soo qaadaya waayahay maxaan sameeyaa ma gaarigaanaan kaligay dhex fadhinaya adiga ilan waad iga tegaysaaye iska dhex fadhi mukeefkaa kuu daranaadano haddii ku imaadanne anigaa ka jawaabi doona maxaa haa culays may kugu tahay adiga baato sheekadiisuu bilaabay haa shaqadeedu waa maxaa kale dhex fadhi gaariga okay ustaadka ka waran bal caawa libiskan kuu soo xirta alaabihii jiifka waaye aqs cadeeda cuntada waa kuu keenana dhadhami dhadhankiisaan ku dheh waa la yaabi doontaa macaan maya aniga uma baahni raashin igee hotelkan seexalaa hadda la yidhahda sooma gaajo ayaa saxnaaq shirkan maxaa waay markii waan ku dhahay laakiin ogow dadka baahiyoo keliya waxuma cunaan dhib malaha hoteelkaada hadhow aan ku geenaa marka mid kale meeshaan ku yaallo ku danaysano
waa ku baryaa intaad iga fogaan karta iga fogow jah aniga waxaan islahaa wuu isbedelayaa laakiin ilaa iyo hadda isma bedelin dhaqan xumadaada ayaad ku socotaa raamu jandara dhibaatadaad maleegta weli way taagantaa warkaas ciyaal suuqu hadalkiisa aaminin arrinkaasna shil ayuu ahaa marka ha ii qabanin kaas shilubu ahaa waan garanay hadda moobeelkaaga waxa ku jiro iyagana shil miyaa ii sheeg bal telefoonkayga maad fiirisay way jiraan gabdho qaar anigii la soo xiriiro anigana mar walba diyaar waxaan u markay ila soo xiriiraan dhibaatada haysato inaan ka saacido oo weliba garab aan siiyo mana jeclay gabdhaha aniga meel cidlaha inaan ku sii dayo waad aragtaa hadda adigoo gaajo ku hayso cunto inaan kuu daro haye noocan miyaad garab ii siinaysaana sida ila tahay adiga ilaa iyo hadda ima aadan fahmin aniga 2 maalin ilaa iyo 3 maalin aan isla soconaa welina dabeecadayga iyo nolosheeda dhabta ah ma haysid oo qalad ayaad iga aaminsan tahay qaabka telefoonka oo kale miyaad cashir rabtaa inaad ii siisaana telefoon kaali telefoonkan waxaa aniga ogeyn oo ku jiraan maxay iin horta adiga xanuun kugu noqon sugbal aan fiiriye sugbal aaba isig haddaan fiirina kal ustaadka bal fiiri dharka jiifka soo maaha soo ma qurux badnan ya idageyso waxaa hubaal arrintan aniga inaanan waxba ka ogeyn aamin igu karso haye waxba kama ogi maad idhahdee haddaadan waxba ka ogeyn soo teleefonkaaga ku soo gala fideogan waalidiintaada tarbiya noocaan miyay ku soo siiyeen soo ima lehan wiil fiicanan ahay gabdhaha kuma xadgudbo waan xushmeeyaa ma sidaanaa wax u xushmaysaa adigii waalidiintaaba isku mid ayaa tihiin fiiriya waalidiinteeda danba ha isku dayin inaad wax ka sheegto haddii kale waan ka sheegayaa maxaa ka bedeli kartaa haddaa waalidiintaada wax ka sheego ma idilaysaana ma ku dilaya laakiin cashiraan ku dhigaan ku leh mana ku sii daynaya haye ma ii cagjugley cagjugley ma ah sheekada waxay maraya faasfaas waa ku feetafeeteha haddii aad mar dambe isku dayda waalidiinteeda inaad wax ka sheegto yaro xadkaaga soo gudboosaya aniga ma xadkayga soo gudbo mise adigaa soo gudbay war aniga diyaar umiyo adiga inaan wax ku fahamsiiyo soo maa micnaha micnahayga wax walba aniga aad dibkaa fahamsiin doon laakiin hadda ma ah intaana igu filan bas waay gaarigaagana waa kaaga dagaa haa run waa soo deg dhaqsaasaan lanay soo dego haa soo degay maxaad gaariga la saaran tahay adalkayga ma qashmiya soo dega dhulkii baan soco ha seexan haddii aad rabto aniga kuma qasbaayo bax baxe waa maamulaha b s group qabyadaan iga qaada iga teginay halo haafuji soo walaasha kulama joogto tanna waa iska sii socotaa beenaan sheegaa laakiin sugad halo fuji halo haa walaasha way ila joogtaa ila hadalban waxaan rabaa inaan haydarbaad imaado haydarbaad ah iyo degdega sidee wax u jiraan wax kale ma jiraan waxaan rabaa arooska intoosan dhicin ka hor inaan imaado haydarbaad si aan gacanta ugu dhigo ninka walaasheeda dhaqanxumada kula dhaqmay fuji sidaa kuu sheeg waa anigu waxaan u socda haydarbaad ninkaasaa raba arrintiina soo afjaro arrintan tuulada dhan ay ku faaftay dhegayga maalin walba ku soo dhacayaan mana u dulqaadan kara aniga waxaan rabaa ninkaasna gacanta ku dhigo haa laakiin arooska 2 sitimaana ka dhiman dhibaatadan hor le aad maleegayso 2 sitimaan wax maga gelin aniga muhiimaddeeda waxay tahay ninkaas inaan gacanta ku dhigo arooskuna waa baanjiraa ilaa ninkaas aan gacanta ugu soo dhigayo lagama yaabo aroos inuu dhaco fujiye hadalkayga faham
sheekadii sii wad heedarbaad sababta walaalkeed kugu yeera maxay tahayna muxuuse ku dhahay ii ogolow inaan kuu soo laabto marwada yarta soo kacay mii maqlus miya dhafar halo aamus adiga miska xanaaqele maxaa rabtaa raaligelinno arrintii qaabka darneed ee waddada dhexdeeda ka dhicisa raba inaan kaa raaligeliyo gaarigayga iga dawra marka adiga si qaldanaad ii fahamtay muhiimaddeedu waxay tahay adiga inaan ku ilaaliyo ee maaha inaan dhibaato kuu geysto waadna ila fahmi laadahay adiga le gaarigayga iga degidhaha adiga la iraaligelinaya walaalkaa i soo wacay dardaarankiisan wuxuu ahaa adiga inaan ku ilaaliyo waa nagahay okay khaladka labadiin naga dhexlaacay walaalka ma u sheegtay ya ilaa hadda uma sheegi lakin haddaa u sheeg ka warran ha u sheegin waa ku baryaa ilan ballan aan ka qaaday soo maha marka igu ceebaynayno iga tagne naga wada iga tag waayo maxaan sameeyay walaalkii gabadha muxuu marto way fiican tahay laakiinse saa u dhaqmaysaa gaangistirnimo camaleno iska bedelsan yaa akhay ani ma gaangistir igu tilmaamaysaa saqajaan xun baa tawri aamus inaa isoo wacdo waa ujeeda maxaa daran wax ii sheeg baakaad joogtaa maahano taraafika ay haysato waddadan been baad sheegaysa ya ani taraafika ay haysato maku dhihino fikirkaaga saxan weligay ma baakana fikirkayga war fikir qaldan leh nacsiyo noocan miyaad ku qaraabataani aniga gacliyaaga aan isfahanino war naga tag xabiibti booskan sugooya arrimo yaraan rabaa inaan kala hadlo arrimahaas markii kusoo dhammeey kabacdi anaa kuu soo sheegay markii aan soo baxaayo waa ku barya adna welwelka iska dhaaf casho khatarna ii sameey okee waa ku imaahaya jikili hadda way aaminu isbaayno taargada mujada baabuurkii waa xidhin loofkayga guriga ma imaanaysaa mise ma imaanaysaa baabuurkiiba taraafika ayga haysatay see wax ku fahamsiya taargada ma arkino video koolankaas oo wacee అమెరికా గాలైనా అత్తిలి గాలైనా యూరప్ గాలైనా యానాం గాలైనా అమెరికా గాలైనా అత్తిలి గాలైనా యూరప్ గాలైనా యానాం గాలైనా చైనా కెన్యా జార్జియా లిబియా ఆస్ట్రేలియా పాకిస్తాన్ హిందుస్థాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఏ గాలైనా అంటూ అప్పటి కవులే వర్ణించారే ఇప్పుడు గాని వీళ్ళను చూస్తే పెన్నుళ్ళు పక్కన పారేస్తారే ఫేస్బుక్లో వాట్సాపుల్లో పీకల్లో తుల్లో మునుగుంటారు పక్కన మనమే ఏమైపోని మాకేం పట్టదు పొమ్మంటారు మగవాళ్ళకి గోల్డెన్ డేస్ పురాణాల్లోనే బాసు సో మై డియర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ బాయ్స్ Magadu matash
lacagtaada waa imisa laakiin maxaa isku dhibay iska dhaaf maya dhib malaha waa caadi ii sheeg hay bas 200 le iska keenha yaa waa ku salaam marwo sidee tahay saaxib culayska jira muxuu yahay labadin isha 200 aan karaa bas wax kale ma 200 bisa ha 200 lacagteedu celi aniga ayaa ku siinaa lacagtaada mal huwa lacagtaada maya labadeenana soo dhex gelin adigana lacagta anaa igu leedahay isla anigaana ku siinaya fiiri saaxiibe shisheey ha iga dhigin noo micnaa dembiga iga galowsa waadna la socotaa walaalkaa walaashay inuu guursan rabo oo lamadiina ba iska seesay miya ilaan jikiliyaan iga dhexeeyaa miya saas miya sheekadii wasaca wariyaa aniga baa noocaas ila hadlay mardama hadallada noocaas oo kale haddaa igu leedashid waxaa ogaataa wejigaa kaa bedelaya usku raali noqo naga tag doqonyo usdeji hoo bas laakiin lacagtaa iga waa qaada kaa maraba iga tag adee ku anfacee iya anaa biigash waa ku khayla keen lacagta jinin la igeed mala socota saa amal ya akhay dhuuna ma naqad aamus wariyaa may beentay way waagta xaggee jirtaa gabarta yarta marwo hal mar aan kula hadlay khamiis albaabka iga soo xirin inaan kula tartiibeyno kaali istaag yaa soo gudub walaal sidee tahayna waan fiicanahay hal daqiiqaad ya oo fujay soo dhow ay mooda socotay labadiina may saydiyo wax yar adiga inaan kula hadlo okay gudaha soo gal okay ma gashid gudaha fiir waa ku barya ha ikashifaya baxra ay gelin haddii ay suurtagal tahay kafee aan caawa ma heli karaa kafeeyo ba ii dalbanaa ka waran adiga maxaa u baahan tahay ha kafee le okay may haasi dhimin iska daa qaabkii loo sameeya aniga qatar ku ay moogtahay isug bal qaab noocee kugu sameeya sokor la'aana walaal ani kafee uma baahni oo haddaa la heeda kafeen rabaa maxaa kugu ma u baahni yaaqee oo barsaada imaadeen okay see tahay walaalka waan ku fiican walaal okay waa fiican anigana maasha allah adigana sidee tahay xaaladda ka war walaal waan fiicanahay okay kan ayuu noo ahaana asagana fujiya la yidhahdaa waa walaalka leh walaalka leh miya muxuu la taagaya marka soo fariisaa tartiib waxshana horta aniga arrintan markaad ii sheegtay iyo sumcad darrada gabadha walaashaa lagu sameeyey muddo 10 maalmood laga jooga ninkaas ilaa hadda sababta loo soo qaban waayo maxay tahay qiyaastii ninkaas horta da'diisa ayaan u baahnay ninkaas adi taqriiban adigaan ku weydiinaya meeqa san camal ayuu jiri karaa ninkaas fijee meeqa jir waa da'diisa aniga sidee ku aqoonsan karaa wariyaha adiga meeqa sanaa jirtaa ya aniga waxaan jira 20 iyo 5 la iska dheh 25 sano camal micnahayga fijee camal isku da ahayno da'daasuu jira macnaa wiilka dhib male marka baasanjariskii baskaa saarnaayoo dhan listigooda aniga ayaa la ii soo gudbinaya markii la ii soo gudbinaya ninkaas gacanta ayaan ku soo dhigaya sida ugu dhaqsiyaha badan ninkaas gacanta ku soo dhig waa dhammaatay ha ii sheegaya haddii kale waa lii duwanaano walaal xoogaa yar aniga hoolo ayaan bannaanka ka rabaa marka inaan baxay ii fiican waayahay isku day 10 daqiiqo oo jaanis aan kugula hadlay inaad isiiso kuma siinayo fiiri tan barbuleemka familkayga ay haysto marka taada ha iigu darino inaan xaliyaa rabaa haye aniga maba ogeyn famil inaa leedahay iga raallina qabo sheekada ma kuu dhamaystirinba sooma dhegeyso hal mar istaag garabaad kaaga baahana inaad isiisano walaalka la hadal oo baarista ha joojiya saldhigan yuusan tegin qaladka dhacay waan kaa raaligeliyey ilaa hadda adiga meeshiiad taagantahay qalad ma ay dhahdee tan qalad maahan ceebtaadana maahane waa caadadaada maalin walba 10 jeer ayaad samaysaa aniga 10 ilaa 15 qalad maan galaa maalintii se malisnaba ana qaladkaas maba isku haye adiga qaladkaa gashay 10 ilaa 15 waaba ka badan yaaba maalinta aan ku arkay ilaa iyo hadda 150 qalad ayaad gashay doqoyan waxaad iska dhigaysaa nin nadiif miya mudana waan ku salaamay aniga isbuuci hore waxaan dalbaday jiif caddaana waxaana rabaa gobolkayga in laygugu soo diro waa lagugu soo diraa may dhegeyso haddii madow ka dhigta iska war
kalarka bedel madow ya iga aamus aniga caddaan ayaan dalbaday mudan caddaankaan u baahanahay caddaanka waxaa ka fiican madowgana ilan caddaanka mar walba wasaq ayuu noqonaa walaashayna mar walba shaqadaas ma qaban kartano marka kalarka bedel waa iga codsi waa maskiin garabararta haye walaalkay xafiiska intuu ka tagay intaasoo keliyaa kuu dhiman markaas kadib wax walba wayba soo dhammaanayaan adigana xabsigaa lagu geynaa aroos maba tegaysid ka warnay wax waalan badana af soomaaliga ma taqaana adiga waa kasaa laakiin xoogaa waa jajabsaano jajab ma wanaagsanaya si fasiixa waa inaad u barataa iskoolgal iya ayeeyada keen garab anigaa ku siinaya waa mahadsantaa igaarkayga adigaa mudan tartiib ya maxaad ka shaqaysan yaa xaa kugu dhac maanoo cimrigaa jiraa shaqeeyaha haa iyo may waxaa isdhehayna xoogaa duqooshinka sanadkan arwaaba kaashkiya isii waxeegi soco iga tag hay cadeyda jaanis isii heno walaalkaa la hadal maxaa rabtaa walaalkaa saldhigga booliska iyuusan tegino arrintan fashiliyo ka dhigin haddii kale aniga baxraan galano marka dhibaatadaasna inay soo gaarta marabi garab isii ma doonay ninkaas inaga baxsado maanta okay waa dhammaatay listiga ma diyaaris haa mudan okay awo wariga keen feelkar kaabka halo walaal sentarka ayaan joogaa vijay haa wuu ila joogaa waayahay walaal okay maxaa dhacayna walaalkay ayaa isoo waa wuxuuna joogaa saldhigga booliiska feelkiina waa la helay saldhigga booliska walaalay markaan codsigayga ii tixgeli ogbare shumiska shilka ay haddii aad sheegtid arooska walaashe qalqiiloo galaano sharafta familkeennan dhulka ayay gelaysaa waryaa hadalka badan iga yarayaan ku dha haddii kale okay soo xaaladdu okay maahan caadi soo maahan xaaladdu هاي ترتيب وين بريا أنا بس كم سرعة يا أخي ما حي قراء عيسان يقدر وش وين بريا تيكت كان كبحلة ما قاعد أو صقرت وروح أسقر شوية كورنيو أنا الشركة التجديد أيوة وحيب القادة لما كانوا ربين يسينسو وعند الحين الدمشات كو آدي دون هل بالأيام صوب عشان وانا إسك عادي هذا الأبو شك قراءة سفي على قراءة إلا ألف شيء يقول على طول شكرا لفيس هلا بتاعي لفيس أديك يا أصحاب هذا ما ضحدك وتكسي متين ميانا ورما شكتي أديك هلا قراءة يا سفي على طول مش شيء مسألة فينا كنت يا وجه كجوجي دين ولا تلمنتين لا تبي مخشاميا walaalka iska fadhiisaada ee ninkan aniga ka hadalsiinaya ha isdhibin tartiibha iska fadhiiso kaal wariya ciyaal suuqnimadaada bilowday soo ma inaan ku aqoon malaysa maxaa kartaa wariya gabdhaas miskiinta runta iska sheeg maxaa sabirka qaldan ugu qaaday kaal wariya waa ku dilaw inta banaafis abo dhibaatasan adaa maleegta soo ma ka xaxaabaya waa kana xareedeeda fiiri qalad damba haddii aad gasho wejiga kaa bedela iska sheeg laak maxaa samays shug walbo iyo dharbaax walbo maanta kuu geysto bilaa shuruud iyo cafiya wariya maxaa samays qalad maxaa u gashay gabdhi maxaa dhawaatays sabirka beed maxaa u qaaday iska sheeg runta haddii kale igraan loq saxbi igu qaadaya seediyo dhegeysa ninkan reer neefeed waay si walbaan u garaac waxna uu sheegi waay marka xoogaa hala sii juuciya asaa runta sheegi doonee sheegay ma sama sheegays alaftan qaada jibina ballan waay jugna bis karaay ma lagu qabana ninka waa soo xumuujeedo tabardaro miiska madaxa la saarta sede ninka walaasheeda sawir ka qaaday ها لكن اسكعفي مسكينك وجهته غلط ذوق له حتى وحي مضنت اللي اسكعفي واقرتي لكن النوع عنه كلاه عفس ما يستاهله والله الحالة سو عادي ما وح عادي ما جيران اباي ارنت وهي خصنتها قربان كهرباء معناه ان هذا يقول هذا الشيء دقيقه واي يقولي بس تليفونك ها لكن markaan kugu dhiibo waxaa rabaa inaad u dejisid aniga ma dibaraysa sidaan gaclihaygu la hadli lahaa okay hadee sidaas tahay waa kugu dhiibaa dhankiisa inaa aadan waa ku qasbanahay
anigaa la hadlaayo wax walbana aniga ayaa xalinaya taleefon kale iigu dhiib adiga maxaa kaa qaldan hal mar le iigu dhiib hay sugbal saydiga walaashay rabta inay kula hadashano halo haa gacali sidee tahayne waan fiicanahay adiga ka waranankaaga anigana sidoo kale waan fiicanahay maxaa rabtaa inaad igala hadasho ii sheeg arrinta dhacdayoo dhan aniga ayeeye ayaa ii sheegtay walaashaa wixii lagu sameeyeyne aad iyo aad ayaan uga xumaaday adiga waxaan kaa rabaa ninka walaashaa sidaas u galay adigoon dilin oo waajibkiisa marsiinin haydarabaad ha ka soo laabanin intaas ayaan kuu sheegayaa isdejiheya cuntada tartiib cun waayahay baay hay abaayadee maxay ku dhahday ii sheeg bal xaaskayga si fiican ila hadashay waxayn igu tiri ninkaas adigoo aad gacanta ku soo dhigin iima soo looba karta ballanta xaaskayga waa inaan uufiya anigana taas ay saaran ninkaas inaan gacanta ku soo dhigi waa ballan aan xaaskayga ka qaaday الزنبع لك الزنبع دي دارنا هدي كل دلت السان له واني قرب ربي اني اسيسو ما حس مسي تليفونك سمحه ugu dhiib filinka waji kale ayuu yeeshay dhibaatsan dhicayso dhan mas'uuliyadda adiga ayaa iska meeshanaad cunto ku daldalaysaa walaal ay maxaa soo wadaa fijee ayaa wax kuu sheegi rabo iyo malisnaba ii sheeg fijee may walaal u sheegnaa maxaa dhacay ya may ilaa maxaa dhacay ha cuntada baarkan laga hel aad ay macaan badan tahay okay caafimaad ku cun walaalkaa markuu baxaa wejigiisa si kale ayuu ahaa maxaa ka dareenta adiga aniga ma u bagan kolley mahadsanid maxay igu mahad celinay haa waa mahadsan tahay maxaa dacmaa qabta haddaan ku mahad celiyey su-aasha dhanna soo afjartano meeshaan maxaa noo istaajisayna meeshaan xoogaa stress markaan dareemaan imaadaanoo kafee iyo cabitaan iyo waxbaan kacbaa si ay maskaxda iigu degto adiga haddii aad doontan waa is soo raaci kartaa haddii dhibkaada taane gaariga iska sii dhex saarana oo dhib ma laha maya maya wax dhiba malaan ku raacaya ish maxaa waay kaneeca micnaa haa kaneecan burinaya isay laatan koolo waay koolo hawareer mar dhow walaalkii ayaa guursanaya waxaana kuu keen invitationka arooskiisa waxaan rabaa inaad kasoo qayb gasho haye wax yar nabadbal waaya adigaa mudan hooyo waan baxay hal sac kadib ayaan soo laabanayaa haye gabarteedii nilu soo dhaqsiyaa hooyo ha soo daahin waaya hooyo habar yar gabadhaan yay tahay waa aniga gabadheeda habar yar waxaan rabaa arrin muhiim inaan kaala hadlo oo gabadhaada ku saabsan ii sheeg bal gabadhaada waxaa laga duuba video iyada ay qaawan tahay micnaha video aysan dhar fiican xirnayn anigana waan arkay sidaas darteed ayaan kuugu sheegayaa haddana waan la socdaa videogaas السيدة وحبها يقول لي قال وريا انت وسعتها ورنا قال لي هذه اقول لكم انه جتني يا نيلو وريا نيلو ما حد كربتها نيلو ما حد دعي ugu horeen iyadaan la kulmo markaas kadib wax walba oo jira adiga ogaa doontaa niilo banaan ku soo bax niilo ka kac hurdada soo bax banaanka waardi waa iska bixi kartaa adiga وريا يا تادي بوليس كان كوغو عايا adigana boolisku wuxuu ugu horeen aan kula hadlo wax walba si aad u fahamtid waardiyaan amarku si inuu baxo فيديو aad iska duubaysaa kadibna qadkaad dhigaysaa soo lama socotay sharafta familkaada iyo midaada hoos u dhac fara badan inuu ku imaan karo haddaba waxaan kuugu waaninaya adiga sharaftaada inaad ilaashato oo aadan marnaba bannaanka is dhigin intaa kadib wax ma fahamsiin kara doqontaan aniga waan ku jeclahay
waxaad iigu kalifaysaa ceeji inaan kuugu dilo inaad jeclaatid ma xumo lacag ma haystaa adig micnihiga 100 milyan maya 100 bilyan ayaan haystaa yaa kula leh hooyaday maa muhiimad gurigaada aan u imaado wax kale ma aha waxaa rabay dhibaatadan oo keliya inaad ila aragto gabadhaada aniga aabbeed ma ihi keliya waxaan ahay qof bini aadan oo u soo danqaday waxaan ila wanaagsan sharafkeeda iyo sumcaddeeda inay ilaashato hooyo waa hooyo mar walbana waxaa wanaagsan hadalladeeda macaanaa iyo waddada ay kugu soo tarbiyayso keliya inaad ku dhaqanto adiga go'aanaha gaarin waxyaalaha xunxun ay kaa celiseen waa inaad ka hartaa midas kale haddii kaala hadlo runtii aniga waad iiga heli kartaa laakiin jeceylkaada maaha waddo qaldan inaad u soo marto sawirada qaldanaya adiga aad baahaysayna sharafteeda hoos ayay u dhigeen oo dadka dunida saar maanta waxay ii qaateen aniga qof xun inaan ah misena gabdhaha rikaateeyo isku day erey walbo aan ku dhahay inaad wax kala baxdo okey ballan iga qaat dib dambo qalad noocan oo kale inaadan u gelin oo farxadna aad ku noolaanaysid ilidsa indhaada kuma qurxano maa macan adigana waxaan kaa raalgelinaa inta siirado gabadhaada adigaan kugu hor dharbaaxay farxadda iigu noolaaw marka hore aniga ayaa ku qaldamay waxaan u malaynayay wiilasha gabdhaha lacagta badan la fiideo ka duuba kadibna ragaata ku geliya anigaa waxaan ku dhahay lacagteedoo dhan ayaan ku siinayaa gabadheeda guurso laakiinse isaga wuu iga diiday waxaan u malaynayay wiil xun balse ma ahan wiil xun wiilkaas waa wiil aad iyo aad u wanaagsan vijay govinda qaladkan ku talagal uma samayn aniga waa ku baryaa haddii ay suurtagal tahay iska kay cafi waan isbeddel aniga wiil fiican ayaan noqda waa huwaal sidaan oo dhan maxaad igu fiirinaysaa waxaan sidaan oo dhan kuugu fiirinayaa waxyaabo badan ayaan soo ogaaday waxyaaba badan aan soo ogaaday ah maxaa ka mid ah ilan aniga wiilka xumaaya ahay mar walba beenta kuu sheegi jiray adigana aad aamini weysay balse runtaa waxay tahay qofkaan kuu malaynaya inaadan ahayn haye erey cusub baad ii keentay ereydan cusub waxay ku wanaagsan yihiin laxan inaad u raadisay kulle aniga laxan kuuma haaye meelahaas kale ka dadayo gaajo ayaa i hayso waxaan cunaa rabaa cunto noocee kuu keenaa waxaa rabtii keen vijay అక్షరం చదవకుండా పుస్తకం పేరు పెట్టేశానా అద్భుతం ఎదుటనున్న చూపు తిప్పేశానా అంగుళం నడవకుండా
పిలిచెనుగా గీతని దాటుతూ చొరవగా ఒక ప్రణయపు కావ్యము లిఖించరామని మన ఇరువురి జతకే గోవిందం ఏంటి 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 కొత్త వరస నాకే తెలియని నన్నే నేడు కలిసా ఏంటి 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 వింత వరస అంటూ నిన్నే అడిగా ఓసి మనసా dhimbal wax walba anaa xalinaayo igu halay arrintaasi fadhiiso xoogaa yar ii kaada anaa dib kugu soo celinaya okay abbaayo deg deg a igu maadda maxaa waaye arrin muhiimaa jirto walaashay maxaa khaldan ii sheeg bal abow arrin ayaan kuu sheegaya cidna ha u sheegayaa marka hore guriga aan tagno walaal waa ku baryaa aniga waan ogaa arrintan inay muhiim kugu tahay waqti badanna ay kugu qaadatay laakiin aniga taas wax micna iima samaynayso waxaan kaa rabaa inaad iska daysid haddaba gelin waa ku baryaa walaal naga dhaafno saaxiibo iga aamus tala dambe ani baaba kaa qaadan doono sidee wax jiraan kaligaa imaadee mise walaalkaa kula socdo orodkooba soo xiro dharna soo xiro yaa qof qaama maa la hadli karnaa aatash ceebay taceel qurux badan ekisbareska ay ugu imaada maxaa waay anigii walaalkay beri waan laaban karnaa waa laabanin ah arrintani arrintaas walaalkay waxba ha ka welwelin arooska walaashaana wuu dhacayaa waa habeen saqdhex inaad ii yimaada looma baahnin taleefon ayaad igu soo sheegi kartee haddaan taleefon kuugu soo sheegi lahaa farxaddaada ma arki lahayn sax beentaada maaha aad ayaanu faraxsanaa arooska walaashayna wuu dhacay hambali ayaan ku leeyahay duqa maxaad igu ambaleynaysaa gabadha soo kuma dhihin waa ku jeclahay gabadha waa ku jeclahay ku dhahday ah sidee ku ogaatay adiga kaala macno dare inay ku daba socoto miyaad u malaysaana waa maya qofka dan ayuu kuula socdaa yaa gabar walba aniga daba socoto mii jeceshahay mise jeceelaa naga dhexeeyo markaas kadib awoobaheeda waxaa ku dhacay maxaasaad ugu hadlaysa adiga maxaan uga hadli waaya ninkayga soo uma jeedid meeshuu jeedo xaaskaygaan jeclahay wahuntiina ka tahada adigu hawni anigu waa caafimaad qabaa xaaladduna waa dhegdheg haddana waad aragtaa qabanqaabo ayaan ku jirnaa wiilkan awoow ayaa guursanaya aniguna xaadir baan ahay arooskana waan ka qayb qaadanaya xanuun yar ayaa haya gabadhayda ayaa meeshaan joogta weli lama guursanin guurka oo wiilkayga ayaad ka hadlaysaa waa la guurinaa maxay welwalaysa adiga lacag maad haysaa maxaad ku guurine lacag way noo taallaa yaakhay welwalka iska dhaf annaga qabanqaabinayna may gabadhaydoo la guursanin wiilkaan lama guurinayo idinka wiilkaan idinku hayo welwalka iska daa yaakh wax walba anigaa dhammayna awoowe baayan anaa nin oo raadinaayo wax walba anaa xalinaayo fujiyaa jooga maxaa dhacay gabadha aan guursanaya walaalkeeda waaye waa wiil wanaagsan walaasheedana waa dhaqanaa haa arrintaas o dhan anaa xalinaayo waa haddii aabbo ii ogolaado kalsoonidiinaan sugaa keliya muhiimadda annaga maahan ee marka hore gabadha aan weydiino inay wiilka raalli ka tahay hay abbaayo maxaad ka leedahay meeshan maxaad ka qabanaysaa in lagu sugayo soo moogid maxaa laga sugaa laakiin isbitaalka
ayaan aad weliba anigoo idin raadinayo ee sidee wax u jiraan maxaa iga dambeeyey aniga familkayga adiga ayay ku sugayaan iyagoo dhan waxaana lagaa rabaa inaad la kulantid aboobaha ma sidaan dhan loogu ooyo wiilan hadalkaaga hal adiga maxay tahay murugta kaa muuqatana familkayga ku sugaysa oo kuma dhihin ee familkaaga si fiican wax igu sheegna weli wax ma fahmine aniga awoowahay iyo ayeeyaday ayaa adiga ku raba inay kula kulmaan ma sidaasa haye waay awoowaha ma isugu haa isagaa ku sugaya soo maro inaad la kulanto aniga laakiin muxuu iga rabaane ma ogi aniga waxaa laga yaabaa hanti inuu kaala hadli rabo oo yaa laakiin aniga lacag maba haysto soo ma sheekadan ii balbalaari saaxiibey aniga waxaan ku dhahay awoowahay ayaa ku sugaya gabdhaha qaar madax xanuunay kugu soo kordhinayaan yaaba ina gabadhaas tolkaas le kamid taha adigan ileen su-aala isii weydiinaysaaba sooma madax xanuun kalma way iga dhaafno kalex afka furur ya adina aba maxaad u faraxsantaha adiga duq cusbaay wadna xanuun ku soo boodana aabo odagan masaakiinka oo dariskeena misne wadna xanuun ku soo booday arrin farxad loo samaysta ma tahay wiilkayga adiga micnaha meesha ku jira ma fahmi kartid sidaa u malaysana maaha qofkaas wadna xanuunkiisa adiga faa'iido fara badan ayaa kuugu jira ma fahmi kartid laakiin faa'iido noocee ii sheegba inaan ogaada raba wuxuu rabaa gabadhiisa giita inuu adiga kugu darsado oo arooska walaashaa iyo arooskaaga hal mar la wada dhigo walaal aad ayaad u nasiib badan tahay halkan maxaad iigu ballamisay aniga waan ku soo wici karay wax walbana taleefon waan kuugu sheegi karay balse halkan waxaan kuugu yeeray wejigaaga farxadda ka muuqatay inaan arko sidaas darteedaan kuu wacay hooyaday markay dhimatay kadib adiga ayaan kula kulmay maalinta ugu horraysoo labadeenna aan wada kulmayna wejigaada si fiican ayaan u fiiriyey oo waxaan ogaaday hooyaday mar walba gabadha ee ku riyoon jirtay adiga inaad tahay waxayna jecleed carruurta aniga ii dhalan doonta hooyadooda inaad adiga noqoto wax walbana wejigaada ayaan ka fahmay nasiib darrada maanta aniga haystaa waxay tahay adiga hooyaday kuma horgey kara sababtaa dunidu maba saarnaba haddii ay ku arki lahayd aad ayay kuugu farxi lahayd laakiin nasiib dar way naga wada fogaatay holax maanta aniga qalbigayga ku shidan wax kala maanay hooyadii ayaa meel dheer iga aaday waxaan u sheegi lahaa inaan helo qoftii iyada ay jecleed runtii anigan waxaan aad uga xumahay maadaama hooyaday ee ila joogin go'aan inaanan qaadan karin oo adigana xaaskayga aadan noqon karin familkaada maanta aniga waxay ii soo bandhigeen adiga inaan ku guursado maanta hooyaday haddii ay dunida saarnaa leed misna familkaada adiga ii kaa diidi lahayn waxaan ku khasbanaa lahaa inaan adiga ku guursado oo meel cidlaha aanan kaaga tegin sababtoa waxaa tahay rajada iyo riyada hooyaday ee lahayd waxaan ku khasbanaa lahaa inaan u rumeeyo hooy macnii garaan noqo gabadhan aniga waa guursadaa laakiin la'aantaa go'aan ma qaadan kari adigana waxaan kaa codsanaa guurkaada maanta inaan aniga diiday familigaada inaadan u sheegin walaashay guurkeeda maalintuu dhaco waxaa igu ballanaa wax walbo adigaad jeceshaha inaan kuu sameeyo oo aan ku guursado haddii aad doonto xataa laakiin codsigaan ii tixgeli hooyadii ayaan ka ballan qaaday markuu ugu horrayso walaashay inaan guuriyo markaas kadib aniga aan guursado farxaddan inaa maqashid ma rabtid miyaana maxaan ku diida haddii aan kula wadaagayo కనురెప్పల కాలంలోనే కథ మొత్తం మారిపోయింది qurux badan
waa mahadsantahay చూసేలోగా దరి చేరని దూరం మిగిలింది ఇన్నాళ్ళు ఊహల్లో ఈ నిమిషం శూన్యంలో మిగిలానే ఒంటరినై విడిపోయే వేడుకలో జరిగినది వింతేనా మన పయనం ఇంతేనా gabadhayda xilligan ayaa keligaa bannaanka taagan tahay cuntana ma soocin waa ku barya caana xatee cab gabadhayda maxaa kugu dhacay gabadhayda ma ooynaysaane maxaa yaa wax kaa haleeyay waxaan kuu sheegi kara ma ahan anigoo ayeeyada ayaa kuu jooga wax walbana aniga ayaa xalinaya ii sheeg gabadhayda waayahay maad noo sheegtay ninkaas sababta uu guurka ku diiday aniga maxaa ka ogahayne na dhaaf yaaqee madaxa iga gelinano yaaqay aamusa buuqa badanna iska daaya ninkaas isagaa dooqle isagaa diidi kara isagaana ogolaan karo waa idin barya hadda taleefon oo keliya igu caawiya xalkoo dhanna aniga ayaa aqaano gabadhaydani way iska degi doontaa wax walbana way isku soo dhammaanayaan keen taleefonka ii dhiib maam saadal waryaa xaggeed joogtaa ii sheeg UK ayaan joogaa maam UK joog ama badda dhexdeeda joog waxaan u baahanaha ninkii BK ahaa inuu caawa ii imaado khatar waybe awoodida miya ayay ii ducey adigoo UK ka imaada xataa ilaa hadda hiddii dhaqanka ma iloobin waad ducaysantahay meeshaas meel khatar ee waaye yaa gaari karaa maama laakiin adaa ka mac maama maku hiloominaan ku dhahay haye awoowey awoow ii waran aabbahe seeway xaaladaada haye asna hay suga kulligiina waxaan iga rabaa saf inaad gashiin maxaa dhacayne horta galab safka haa estoosiya uma waa mahadsan tahay ii duceeya waan kuu duceeyey adna walaalkay abaabo adeerow ii duceey adna wiil fiican waaye lee adaa maya adda iga duceys hoos duka haa okay adna kaali iga duceys baawiyo okay yaa tahay haye yaa kale dhiman ii sheega be ay adeerkay macaan ahaa seewaay baaba xaaladaada keen baa kaa duceystay ninka maxaa noo keentay ninkaa gabadhiina la siin lahaa maxaa kugu dhacay shaqaalaha guriga xataa ma ka ducaysana dadka ma kala garan weysayne hooyo dadka shaqaala ahaada ama aysan ahaynan ku dhahay waa inal ixtiraama waay seewaay maama yaqay dadka dhan isku hallee waay annaga wax oo farqi dhexdeena yaalib ma jira be seewaay maama caddii madow isku hallee waay haddana sheekadaas iga dhaafaan ku dhahay కవి ఎవరో ఈ కథకి ఎవరెవరో పాత్రలకి తెలియదుగా ఇప్పటికీ పొడుపు కదే అప్పటికీ మనమంటూ అనుకున్నా ఒంటరిగానే మిగిలున్నా ఇందరిలో కలిసున్నా వెలుతిని నేను చూస్తున్నా పొరపాటు ఏదో అది దాటలేని తడబాటు ఏదో ఎడబాటు చేసే ఈ గీతలో దాటలేవా صحيح قطرس waa ku darsana igu halle hadhaafaya aan waa ku salaam saaxiibkay xaaladaada iga waran be daqankan waryaa yaa ku dhaha meeshaan imaaw weliba badar ayaad sii guranaysaa miya adiga iyo asxaabtaadana waad ii qoslaysaan markaasaa ii baashaalaysaan baahidiin idin hayse maxay tahay uma sekana khati adiga ceeb waaye qofka inaa la ixtiraam waaye waryaa
maxaad u taagan tahay meesha waan kuu dhigaa وما سكان قد عرتي عووي وحان يا اخي وكتوغا وما بس واني اي خمسة وما انت ذا مرة ادنى كنا عين واني سلامة صاحبته waa kaa qadni barasho wanaagsan ادنى سلامة iska bar asxaabteeda بحني ويدا حبلد مركي إمادن عنتا بحسي سنة دقداني محاني أركتي duqda sooma way iska kaftamaysay marka waxba adiga isku mashquulin ka siiso واني فاهمي هدا اوكي وحلب اوكي ما ينو هدي شيك saaxiibo waxaas iska dhaaf kuu dhe adiga hadda dhowaad safar ka imaatay dhaqsin waad guursanaysaa marka xoogaa ma wanaagsano inaad guurka sii dheerayso ما لك كالب بحر انكو دمشق waxay dheeb wax ii sheeg maxaan ku dhahay isaga tayn ma isaga weydiisay akhaan yaa kaalibe uswa baxay adaa joogtaa madaxii ku dhaaran ku dhahay wixii jiray ii sheeg u kaadi akhaan maxaan ku dhahay hadda ani waxaan ku sheegay ma aqaani ninkan iyo qofta adiga is guursanaysiin xoogaa sheeka ka dhaxayn jirta moogta intaadan imaanin koor waana iska soo sheeka ka dhaxayn jirta maxaa laga wadaa sheeka ka dhaxayn jirta familka waxaan dhan qasayno familka waxaan dhan qasay ha familka famil xun waa arkaysa habarta sabta markaa nimid xitaa waan xumaysa anaga dhan waana soo buris waa arki kaas ani baa runta waa marka adigana gabadhi aad guursanaysaa London ka timi shaati iyo jaakad xun soo qaadanay kadibna anaga noo imaanaysa wariya jaceelka horeeyay waa rag ay ku soo rafaadeen adigana qas aan meesha la timid iga tag saaxiib waa ballan waa ka arsanaya saaxiib adeer lacag marta hay sike kistaan qaado baji gabadheeda yareed quruxley adeerkaa miyaad u riixriixaysane gabar fiicanaa taa balse hadda kadib haa u riixriixine timaha ka jafyaa haya waryaa maxaad inta u fadhisaa hunguriga dhamma qaybsanno hunguriga inta warkiisa ka baxdid adiga maxaa kaa soo xanaajiyey ii sheeg kaal duqdaan ii daacad waxma oga miyaa afarta qofooda ii sheegtay 15 kala imaatay maxaan siiyaa marka dadka ii sheeg bal war 15kaas waxba igama gelin raashinka inta soo harta meel ii dhig anigaa filinjeer gashanaya waqti walbana anigaa cunaaya maxaa iga gala dadkaas ii sheeg waryaa weli oo amarkayga qaadagu waxaan ku farana sameey waryaa maxaa waaye dhaqankan cusub iyo jiljileecan aad la imaaday haddii mar kale igu durtid inaad tallaabo sharci kaa qaadaan ku dhahay ayay gudaha ma ku jirtaa haa waa maasan tahay waan idin salaam hal mar ayay iigu cabal ayay waa lagu wacooyaa haa ayay sidee tahay aabaa maxaa waaye waxaan soo dhiiba macnaha dahabka waa dharkan dibaanka soo dhiiba ayuu dhahay cidda u siigay maxaa waaye dahabka iyo dharka oo dahabka la soo hormarinaayo ayay hal mar inaan kula hadlo jaanisiisii runtii adiga habeenkii aad cuntada iga burinaysa waa ku saxsaneed aan iloomin salaabada aniga aa qaaday mid aan ku qasbanahay inay ahayd ilaan xilligaas waddo kale maanan haysanayey isku day inaad ifahanto waryaa maxishoodi waan ogahay wax aad soo wadoo dhan ayeeyaday ayaasaan ahayd abtigay ayaa diiday marmarsi aan loo joogin ayaad waddaa balse aniga hadalkaaga ma ahan mid igu soconaya dhallinyaradiinoo dhan waan idin fahmi karaa waana idinka weynahay dhibka aniga xilligaas i haystay seedigay wuu ogaa kuuma sheegimi adiga waryaa cunugaaga yar igala tag hadalkaad waddo فيجي سي عمل يا اخي حق وسعت هذيك مرقدنا ما واي لكن صاحب يال جيتار جعل حد في قاده marka waa inaan la soo kulmaa ma sii joogi karo la'aanteeda aniga waa inaan xageedaada qaladkoo dhan aniga ayaa iskale giitaa iyadoo i jecel ayaan haddana dareemi waay maxaanu dareemi waay maxaa siiga khaldana aniga xaggeed waa inaan qoftaas arooskeeda wax yiris ayaa ka dhimsay wax ka yimid markaadiga intee u ordaysaa istijiya qaad saaxiib waan la socdaa arooskeeda inuu yahay walaashay walaalkeed ayaa aroos raba aniga marka giitaa sideen ku guursan waay arooskaas waa inaan baajiya ma jiro saaxiib kale hayo ku raacinay maashaalla iikaadii xogaayar waa soo laabanaa sii baashaala hay seede maxaa dhiboo jira ii sheeg bal halkaana igu jirta xaggan ku baashaalin ma nagala soo qayb gashid laakiin seede igaraan noqo arrin ayaan rabaa inaan kaala hadlo maxaa ula jeedaa wax kale ma ah awoowaha arrintii uu ka hadlaya oo guurka walaasha ku saabsanay ayaan rabaa inaan fujiye arrintaas
wax weyn maaha adigan anaa kugu kalsoon anigaa ku doortay mas-uuliyaddan anaa gacanta laga saaray saa darteeda anigu wanaaggaagan ogahay walaashayn adaan kula jeclaaday hadalkaada ma xumo laakiin arrin ayaan rabaa inaan kaala hadlo ninka walaasha sawirka khaldanaa ka qaaday oo adiga aad raadinaysay cid kalmeene waa aniga waan dareemi karaa aniga tallaabo khaldan in aan qaaday fujiye arrintaas horaan u ogaa aniga wax walba walaashii ay sheegtay eegas ma dhaafay hadda ayaan tagaya kaw ayaan ka soo siinaya war ma dhaafay walaal wax yar 5 daqiiqo kaliya si hal mar fariiso waa ku baryaa hadalkayga dhigayso walaal waaya ii sheeg walaal aniga waan ogahay aflaamta hindiga maraykanka kartoonada iyo weliba musalsalada laakiin waa ku baryaa isku day dacwada inaad waxaad ka daawan kartaa aniga ka codsanayda fanbroch.com sababtoo fijiyo qof xun maaha walaal xanaaqa badan sidiisaba jacaylku wuu ku burburaa waa nin aad u wanaagsan walaal walaal fijiye isaga qaladka ma uusan lahayn ee gabadhaas ayaa qaladka lahayd muuqaalkaasna iyada ayaa iska duubtay aniga marka hore waxaan u haystay inuu yahay nin xun balse dib ayaan ka ogaaday waxaana ii sheegtay hooyadeed wax walbo fijiye qof xun maahan walaal waa ku baryayaa adigana dacwaha ka gudbinin ninkan intaan aniga raadinaya qof xun inuu yahay iyo qof wanaagsan inuu yahay waanba jeclaaday walaal gabadhaasna hooyadeed horteeda ayuu ku canaantay weliba wuu dharbaaxay wuxuuna dhahay mustaqbalkaaga ha ku ciyaarin anigana sharafteyda ha ku ciyaarin walaal soo qof wanaagsan maaha walaal ninkaas dumarka xaggooda lagama mara aad ayuu u xushmeeyaa anigana waxaan ku qiimeeyey dumarka sharaftooda qof garanaya inuu yahay gabadhaasna sidaas waxay u samaysay si ay wiilkan u hesho sababtoo ah way adag tahay wiil dumarka xushmaynaya in la helo walaal sidaas darteed ayay u jeclaatay waxaasoo dhan ay u samaysay walaashayna adiga ku dooratay adiga diyaar ma u tahay arrintaas inkastoo aan ogaa gabar inay ku jeceshahay oo ay dartaada meel u fadhiso haddana la ilmaynayso adigaan ku weydiiyey go'aan noocee qaadan lahayd ii sheeg bal wax walbaan kuu sheegay aniga walaashay waa ii sheegtay inay gabadhaas aad iyo aad kuu jeceshahay ee adiga go'aan noocee ka qaadan lahayd vijay waan ku salaabana walaal igraan noqo hal mar inaan kula hadlayaan rab haddii aad jaanis heli kartid maxaas kaa rabaane ma aqaan sheekada iyo dhagay wax walba ogahay bax u tagtay muhiim ma aha muhiim hadda ma ahayn bax u tagaan ku dhahay een haddaba waa kuu sheegayaa arrintan familka si fiican iskaga soo xali hadduu mar haddii ku guursada bannaanka xataa ma soo baxays aboogay way adeerkay wayna ma jiro hadda arrintan soo xaliyaan ku dhahay soco isaag hal mar waa ku bara inaan kula hadlaa raba isaag maxaa iga rabtaa igaraan noqo gareen runtii uma malaynayna jecel xadhaaf adiga inaan kuu qabo arrintan walaalka ayaan ka soo ogaaday ay maya maya dhib ma lahan taas caadi waa hadda waxaas dhan waaba laga soo gudbo maaho walaalkeena anigaa la hadlay adiga qalad yaraa gashay waana iga raali gelisa marka wax dhiba shabdhe ma wanaagsanin sidan inaad samaysaday wax walba ayaad iga qarisay maxaan kaa qariyey waxay ahaataba
aniga aadaan kuu jeclaa waxaa iga codsaa arooskan inaad iga kansasho oo aniga haddii raacdo yaa sheekadu meel xun bay maraysaa laakiin aroos ilaa ayaa shukaan ku jirta haye noo wada dhe sheekada waad waa ku dhegeysanayna barya ayeeyadaa lahada hal isbuuc jaanis ha laysiiyo anigaa ka faa'iidaysanaya okay maxaa dhacay laakiin iyadu waa diidantaan u malaynaya arooska iyadaa ka soo war horjeeda adiga ma waalan tahay 4 saacadoo keliya ka dhiman arooskayga ma iska ogolaata waa caadi ninku waa ogolyahay waana uu jecel yahay baaska ka khaldan bas igdhaya lamadan lama qof oo mar hore isjeclaayeen waay ma fahantii reerkoodna waxay rabaan ani inay loqonta ii geliyaan oo iwaalanaan ku dhahay neerfa iyo dhiikar iyo wuridaa miya marka yeelayaan ku dhahay sheekadaba hadda haysaan kula iska sii deyni diyaaradda ka timid kaban ogashaan dib ugu laabo orod aniga waqtigan waxba kuma qaban karo dhegeyso waa ku barya ha iga tegin aad baan kuugu baahnay siidaa gacmahayga iga fogow aniga waxaan isleeyahay maalin maalmaha ka mid ah way ku fahmaysaa maxaad ii fahmi lahadaa adiga miyaan ku fahmaa adiga wax ma fahamta horta weligaa isma beddelaysid mana laga yaabo inaad i fahantid adigoo wax walba igu sameeya haddana xumaata kuuma qaadin ugu dambayn maxaad abaalkayga ka dhigtay walaashaa sidaad u rabtid in la guursado ayaan aniga noo rabaa in lay guursado adigana waa diidda guurkayga arooska walaashaana waad oggolaatay waxaanoo dhan ma waxaad u samaynaysa guurka walaashaa dartiis may igiraan loq aniga isma dhihin sidaanoo dhan ayay u fikiraysaa khalad ayaan kaagan haddii macquulsa waxaan ka habsa inaad iska cafiso haye cafisa aniga maalinta aan ku arki lahayd waxaan kaa sugaya hal eray inaad idhaad halkaas eray oo waan ku jeclaa balse adigii ma aadan dhihin mar walba waxaad leedahay waan ku barya mar iga raali noqo qalad ayaad iga fahanta aniga arrintan mar dambe uma laabana waa ku baryaa mar iska kaa cafi raali noqo mar dambe uma laabana intaasoo keliya ayaad leedahay adigoo qalad iga gal haddana mar walba aniga waxaan isku dayaa inaad ifahanta intaanoo dhan maxaan kuu daba taagnaa adigoo waxaa ogeedoo dhan iga sameeyey laakiin qaladka anigaa leh waan qaldanaa shamiska aadi shamis waan ogaa inuu yahay jaceylkeena bilowgiisa laakiin waxaan islaa maalinuu wuu ku fahmayaa adigana waad i fahmi weysay adiga doqon ayaa tahay dantaadana ma ogid adigana waad i fahmi weysay fijey anigii adiga isma guursan karno sababtoo waxaad aaminsan tahay inaan hooyo noqon karin balse aniga hooyo waa noqon karaa hooyadaasoo weliba ubadkeeda si wanaagsan u tarbiyeysa waana hubaa ubadkayga aniga inaan xanaanaysan karo fijey haddana waan kaa sii tegey hadalkaaga qaybna waa run qaybna waa been abofiir hal dhalma noo keentidoo waa isfogaaraynay hal dhala ah markaas kadib macbina haa markaa cabto hadallada qarinaysa oo dhan bannaankaad u soo bixinaysaa bannaankaad iska leedahay mala socotaa arooska walaashii qalqiil ayuu ku jiraa markaad xalaal iska raba xalkeen wax weyn maaha gabadhaa u tegay jaceylkaaga u bandhiganaysaa jaceylkaa u sheegini ah sheekadan dhagay noqonay markaas hagaag qorsho fiicanaad ii keentayaan ku dheh hadda ayaan isbarayaa weliba waxaan barayaa fijey goobinta qofku uu yahay keliya adiga wax lee ila arag xisbul makeup idhegayste arooskan iyo qurxintan aad meesha ku haysaan looma baahno gabadha waxba wejigaa ka daalinina maxaa dhacayne ee wiilka guursan lahayba meesha wuu ka cararay weliba cabsi darteed marka idinka waxba gabadha ha daalinina ee ka sii socda
fallow akhriska aad wadda naga jooji abu walaalka maxaa ka war waxaa fahmi kara maanay naga joojiyaan ku dhahay walaal soo istaag adiga isaydi hal mar kor u soo istaag walaal maxaa dhacayne iska dhaaf adiga afkaadana iga xir isaydi soo istaag vijay seven maxaa sameynaysaa ha aabo ii ogolaa wax yar fursad aan ku hadlo cool seediyo maanta fursad iiga fiican oo codsigayga aan kuugu soo baldhigi karo inaan heli doono ma u malaynayaan ku dhahay walaashay inaad guursato adiga waan ku ogolaan laakiin ii ogolaa seediga inaan noqdo oo walaasha aad igu darsato wax kana nin raga iga dhawaa kana sanaan raba jaceelka waaliya sidaanoo kale waa sugaya moogta ugu dambeyn laakiin maanta waa hele iga farxiyaan ku dhahay saa kaaga farxiyoo kale seedigaa noqoto seed waa qorya istaan hay ceebani maya ceeb ma taagna bas waayaan ku dhahay balantaas baxay bas waayaan badda buurka adabtani dhahay aroos ma jirin nikaxna ma jiro socda kaale aygo وسخ واحد مشان كان سامياني فملكان اول بيك زعل وريا حكيت وسعتاني هذه هورتكو قدامك لعبه انك خلينا بقاسه ورا وعمل وريا العيال باي وريا لا تنكي ماذا قد نتناسى شقي هاي كل حوريا ماشي سيدي وعد وكبريا عفسك ايغو سفر فرجي aroskayga ayaa dhici lahaa maxaad samaynaysaa wanaga am stoqeen aroos waa shan daqiiqo fursad siino arooska kadib oo dhacay waxa way qurux badan runtii iska sheekeeno rafaadkan oo dhan adiga darta umarayso uma jeed hal mar xataa walaalka wax u sheekay ka ogolaadano ha waa bislaaday aniga seedi cadde seedi saacada ma wax isku sheegaa gurka dhirabe seed waa ku sidee seed saacada oo kale macquul ma gurka waa dhiraba seedi ma sana maxaa waay sidaan leewaay daqan ma sini dacskay hay waa guuleystay mujidan odagi adiga sidaa u socotay saydiga lugihiisa ayaad qabsanaysaa kama foqaysid ilaa gabadha jeceshaha ay kaaga imaado macnaha hadalkayga si fiican u dhuuxiyaa ugu dambeyn shahaadada jaceylku waa liisiiyey صبحت لي صدق كل جوده كنت هيحير أنا جوز واشتقيت كنت وريا سيدي maxaa dhacay noo sheeg bal dadka dhan waa la soo dacway sababtoo ninkan ayay wax ka xoogeen laakiin jira marka wax lagu xoogin noo sheeg bal يا أخي وركز ده إسكلافة أبنك يناك تسقول سدين ناك تسيق دفيان كنت هاي ودقي سربا مي تسكرتين أبنك يشك قال قرحي معان بدن واكاي إنك مجدا قعنت سيدي sii daawriyaa muddo 6 bilood haddaa gacanteeda taabat waa ku dilaya ogow يا إيود بشكل وكذا أنا كوضاي كافيتيريا عن تجني لما كفاية عن قاعد كسجني كدم نواء وفكري وحير قفت عني عن جعله أنا جوج نكل إنه جورس صورة قلما كدم نقام وقات وان وجورس ذي وأوجد هذا لبلا ما أنا وأنا إيش جورس ذي وين إزجعلين هذه كم حاسة ما ينسى خلت كان بعوا يسوى بحر كان كذي ما حاول كلي لكن بيتنا ينزل شيء هو بحبناك بحكرة ما حد هذا صاحب معان صاحب معنا قفتي يقور ويدين عجيبتها ما كلنا عجيبتها فرصة في عنا هي ستايان كوري فرصة دي هراء وضيع ذي هذا كفائدة الشمس دبك الصيام كوري برادر كي سير بتاعي فيلم كمان دب وصوب بلا بينا 10 دور ولا قصوتك يسمع هي ما حتى لا ما حاسة مينا مركوايه سلام عليك حليان وحاسكيغا هي هدي حاسكاغا تاني مالو شمينا مالي معناها شمسك ممنوع مكيه شمسك يعني يدو قار نويا نو حليان نقد دايما لو جوج شكلاس గుమ్మంలోకి హోలీ తెచ్చావే నువ్వు పక్కనుంటే ఇంతేనేమోనే నాకొక్కో గంట ఒక్కో జన్మే మళ్ళీ పుట్టి చేస్తున్నానే ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే قروح بدن إجرا النقوة كبرى أني مر بينه فيلم إن صوب بلا إن شمس كان خلط كلا عمل ودعرب إنه دومولية الصهد لمقطع أسا يقتل ربع يعني أسا يقدر هي يا وي ميتصل وعرفت هذا maadaama aan isguursanay hadda ma ishuminaysid miya
చిలిపి కలలకు బహుశా ఇది వెలుగుల దశ